Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ka falceliyay khudbaddii saameynta lahayd ee uu maanta jeediyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Sheekh Shariif waxa uu sheegay buu yidhi in uu yahay madaxweyne hore isla markaana dowladda laga doonayo buu yidhi in aysan dhayalsan hadalkiisa oo abuuri kara saameyn bulsho. Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed waxaan hadalkiisa u arkaa mid dib u dhac u horseedi kara oo aanay ahayn in la dhayalsado. Wax ma dhimi karo dad baa leh, laakiin ma doonayo intaasi la isla gaaro. Ma ahan in la dhayalsado, mana ahan in looga sii daro, ayuu yidhi Yuusuf Garaad Cumar qoraal uu ku soo qoray bogga uu internetka ku leeyahay. Waxa uu dowladda dhexe ugu dambeyn ugu baaqay in ay xasiliso khilaafka cusub ee ka dhashay xayiraadda la saaray Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Waxa uu sidoo kale sheegay waxaan dowladda ugu baaqayaa ayada oo danta guud ka eegaysa in la xaliyo khilaafkan oo ah mid markii horeba laga baaqsan karay, ayuu ku soo koobay Yuusuf Garaad Cumar. Dhinaca kale, mas'uuliyiinta hay'adda duulista hawada ee Soomaaliya ayaa guud ahaan ku dhawaaqay in la joojiyey diyaaradaha aada iyo kuwa ka yimaada garoonka magaalada Kismaayo muddo 3 maalin ah. Maamulka hay'adda ayaa ku wargeliyey shirkadaha diyaaradaha in la hakiyey duulimaadyadii tegi jiray Kismaayo laga bilaabo 23 bisha oo maanta ku beegan ilaa 26 bisha, waxaana muddadaas la sheegay in wax duulimaad ah aysan ka degi karin magaalada Kismaayo isla markaana aysan ka soo bixi karin. Dowladda Soomaaliya oo si aad uga hortagayso in magaalada Kismaayo ay ka dhacdo munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, kaas oo 26kii bishii hore lagu doortay magaalada Kismaayo. Khilaafka ka taagan dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa xoogaystay maalmihii ugu dambeeyay, waxaana ka dhashay in si tartiib ah loo joojiyo duulimaadyadii tagi lahaa magaalada Kismaayo. Dowladda Soomaaliya oo dhowaan ka hadashay xayiraadda iyo sidoo kale xanibaadda saaran maamulka Jubbaland xagga duulimaadyada ayaa waxa ay si cad u sheegtay in magaalada Kismaayo ama guud ahaan Jubbaland aysan ka dhisneen maamul la aqoonsan yahay, taas oo ay ku sababeeyeen in dhibaatooyin loo geysan kara dadka halkaa isaga kala gooshaya, isla markaana dowladda federaalka Soomaaliya ay go'aanka adag ka qaadatay in magaalada Kismaayo dadka u duulaya ama diyaaradaha u duulaya Kismaayo baaritaanno adag lagu sameeyo, kuwa halkaa ka yimaanayana si la mid ah loogu sameeyo. Ururka la magac baxay dowladda Islaamka ee Daacish ayaa waxa ay soo bandhigeen sawirrada dagaalamayaal ku hubeysan qoryo fudud, isla markaana ay sheegeen in ay tababar ku qaadanayeen xero ciidan oo ku taala buuraleyda Galgala ee gobolka Bari. Ururka ayaa ku baahiyey sawirrada bar ay ku leeyihiin internetka oo ay ku faafiyaan wararkooda iyo sidoo kale xogaha la xiriira ururkaasi, waxaana ay sheegeen in kooxda cusub ay ka mid noqon doonto Daacishta ka howlgasha Soomaaliya ee dagaalka kula jira dowladda Soomaaliya. Waxa ay sidoo kale sheegeen in ciidamadan cusub ay ku tababaranayaan xero Daa'uud al-Soomaali oo ay ugu magac dareen tababare ciidan oo hore ee kooxda looga dilay. Dowladda Mareykanka ayaa dhowaan waxa ay sheegtay in sare ay u qaaday dagaalka ay kula jirto kooxda Daacish iyo ururka Al-Shabaab, isla markaana ay tilmaamtay in ay sii kordhin doonto dagaalka tooska ah iyo sidoo kale midka cirka ee lagula jiro kooxaha ka jira gudaha dalka Soomaaliya ee kala ah Shabaab iyo ururka Daacish. Guud ahaan dhageystayaal iyo daawadayaal, warkii oo aad kala socoteen golaha wararka waa naga intaa. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe saar, comment, like iyo share ku qabo. Waad ku mahadsan tahay dhageysiga iyo daawashada muuqaalkan. Nabadgelyo.